badan waayo waxaan doonayaa inaan si gaar ah idin la hadlo hadaatiin reer Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan dareenkiina kiciyo waxaan rabaa mid idin danayna inaan idhaahdo waxaan doonayaa inaan idin sheego mid hadaa guntataan nolosha guul ka gaadhisaan marka caawa alxamdulillah intiin halkan joogtaa dhagihiina maqli maysaan dhaliil maqli maysaan siyaasadii oo laga hadlo maqli maysaan qabyaalada laftigeedii markii waanada ta xagga dambe laga yaabaa iyadoo kooban inay soo gasho marka horta saasa ku nasiib badantiin anna ma nasiib badanahayo caawa waxaan helayaa habeenadii kala ka duwan oo xilay saaray oo leeyagu yiri waxaad bal halna dheh midaan ka qornona dheh midka taariikhda galayaan waa kaas weey saasaynu markaa ku wada nasiib badanahay alla waxaan ka rajeynayaa midkan odhanayaa inuu noqdo markaa u baahnaydeen ilaahay waxaan ka rajeynayaa madashiina oo madal khayr qabta alla waxaan ka rajeynayaa dhamaantiin hadaan ahayn bar idinkeena kamid ah in fariin wanaagsan oo qaadaan ina iga guntantaan insha Allah ta'ala marka intiina aan aqoon aniga magacayga Cabdikariim Mugaal Saala sheegay waxaan uu kamid ahaa dadkii dhalinyaradii ku kortay magaalada Hargeysa waxaan bilaabay inaan dhalinyarada u dhaqdhaqaaqo anigoo 17 jir ah haddana waa aragtaan oo ka garkii cadaaday ayaamaha hareeyay waa iskeerihiin balantii aan galay ayaan waxaan doonayaa ummad inaynu sameeyno 60 jirka marka la gaaro looga baxo jiilka soo socdo oo kuraasta loo baneeyo shaqada looga tago siyaasadda looga baxo ilaa aynu go'aamada noocaas qaadanayna ma helayno dalka aynu doonayno inaynu helo caawa mawduucan la diray oo runtii ah mawduuc aad u balaaran oo marka lagu yiraahdo dhalinyaro la hadalo waxaad ka hadashaa hogaamin ka hadal waqtigaad haysataan oo iskaba kooban yahay waxay noqon mawduucan oo kale wuxuu ku wanaagsan yahay wax socda oo meelaha week loogu tala galo si marka xogta iyo xogta aad u baahan tihiin oo dhan marka aan idin dhameystiro laakiin waxaan ku dadaalayaa inta karaanka ah inaan koobo sidoo kalena xogta aad rabtaan inaad heshaan iga heshaan waxaan doonayaa inaan si ay u noqoto doodu mid aan dhinacayga u ka socon oo caawa habeenadu ka duwanaadaan haddaynu ka hadlayno hogaamin ama hogaamiye labada ama hogaaminta ama hogaamiyaha bal wuxuu idin la macnayahay hadaa dhalinyaradii Jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarba qof iyo laba inay sheegaan marka hogaaminteenu ku horeynayna hogaamintu ma inaad guri qurux badan dhisataaba ma inaad gaari fiiga sakaxaysataaba ma inaad adigu qurux badnaataaba maxay hogaamini tahay waayo waxa laga yaabaa leadership in Somali context marka hogaaminta iyo Soomaalidu sida u fahamtay marka laga hadlayo waxa laga yaabaa in dadku ay dirjirsan yihiin waxay hogaaminimo tahay marka qof iyo laba raba ina bal midkiin waxa uu hogaamini kula macna hogaamiye maaha hogaamini waxay kula macna tahay mid idinkeeda kamid inuu tabaruc u sheego codkana kor u qaado mikrofoonka kula soo gaari maaye aha codkana kor u qaad danta bulshada wax uga dhigo qof labaad ina ma jeclaan lahaa hadii la helayo hadii ablo xishoodaan inamada ku celinaya way hogaamiye waqti ma hayne hogaamiye muxuu idin la macneeyay ha walaalkay hogaamiyaha wanaagsan waxa loo qaana mid lamida ama ku dayda rasuulka Kaleey sallallahu alayhi wasallam hogaamiye sax hogaamintii nabigeena suubana Kaleey sallallahu alayhi wasallam ayaa inaga filan inuu faano qofka hogaamiyaha hogaamintana waxay naga filan sidoo uu hogaamiye ila waa hawdiye waxaan doonayaa inaan ku bilaabo hadalkayga talo maxaa iska galay dhalinyarada iyo in laga hadlo hogaamin ama hogaamiye Somaliland marka la joogo labada maxaa iska galay si marka hadalkayga gundigiisa marka dambe u fahamtaan waxa iska galay baan idin sheegayaa horena waan idin ku sheegay geyga Somaliland waxaan nidhi waxa ku nool 3 milyan iyo bar qof waa sida ay sheegayaan warbixinii ugu dambeeyay ee la qoray 3 milyan iyo barka waxa la yiri 2 milyan waxa la yiri 7% waa dad 35 jir ka yar taasoo macnaheedu yahay marka 2 milyan iyo 450 kun oo qof inay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka yireen da'da 35 jirka haday sidaa tahay waxa weeye macnaheedu 2 milyan iyo 450 kun oo qof ayaa noqonaya hogaamiyayaashii maanta iyo bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland
marka laba kala maarmaya maaha hadduu doonayo hogaamiye inuu Soomaaliland ka soo dhex baxo 2 milyan iyo 450 ka markuu hanto ayuunba kursiga fuuli karaya sidoo kalena fursadda hadday dhalinyaradu awoodeeda fahamto hogaamiyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka soo dhex baxayaa 2 milyan iyo 450 kun oo qof waayo dadkii inta hadhay baa yar baday marka sidaasay labada arrimood isugu lamaan yihiin waxaan doonayaa walaalayaal inaan idin xasuusiyo waan ogahayo waa lidin yajabi waxa tihiin dhalinyaro lagu soo barbaariyay hal ku dhig baana oo muxuu hal ku dhigaas yahay waxa tahay hogaamiyihii bari waxa la haraa kelmadda muhiimka ah ee macnaha sameynaysa waxa tahay hogaamiyihii bari iyo maxay iyo maanta marka nin doonaya inuu ku khiyaameeyo ayaa kelmadii nuxurkuba ku jiray kala hadhaya markaas wuxuu ku sheegay hal ku dhig kaliya too maxay waxa tahay hogaamiyihii bari baa tahay iska suugay macnaheedu marka waxaan u arkaa inaad tihiin dad la khiyaameeyay in badan baa sugteen maalinta bari inay timaado in badan baa sugteen waliba dhalinyarada cuslaatay anigu aan ku jiray makadadii dhalinyarada ka baxday ee lagu soo anqariyay kelmadda ee loogu celcelinayay dhowr iyo 40 sanadood wali maalintaas way iman laadahay laakiin waanu samirnay waanu sugnay waxaan kelmadda caaw u xusayaana waxa weeye adigu inaanad anigoo kala noqon waayo anigu ma nasiib badnayn dhowr iyo 40 sanadood baa leeyahay leeyahay hogaamiye bari baa tahay barina ma imanayso marka aniga jiilkayga hadday noqdeen qaar aan ka gilgilan oo ka hadal oo ku darsan waxaanu nahay cod dheer aan ku oran waxaanu nahay hogaamiyaashii bari iyo kii maantaba haddana nasiib ka helin idinka rabaa oo caawa doonaya inaad ku xataxateeyeen inaad tiraahdaan marka la idinku dhaado hogaamiyaashii bari ee siyaasiga la hadlaya oo la hadha kelmadda waar ku dar iyo waliba hogaamiyihii maanta sidaad ku tahayna waan sharaxaya waan sheegaya waan ogahay oo waxa idin mashquuliyay arrimo muhiim oo ay ahayd in wax iska weydiisaan waxa idin ka mashquuliyay culayska idin haysta ee idin ka haysta maxay shaqalaanta xarkaha goosatay ee xad dhaaftay Soomaaliland ka jirta culayska idin ka haysta jaamacadaha aad dhigataan lacagta qaaliga la idin ka qaado culayska idin ka haysta dugsiyada sare ee dhigataan lacagta la idin ka qaado iyo waliba curriculumka imika la idin ka iibiyo oo intuba culays soo kordhaya waxaan ogahay in tiro badan oo kamid ah dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay quusatay rajo dhigtay oo ay miciinsadeen gidaarada iyo jaadka halku laakiin sidaas maaha waxaan doonayaa 4 arrimood haddaad dhalinyaro tahay oo doonaysa inaad noqoto hogaamiyihii maanta 4 arrimood inaad xoog saarto nolosha waxa uu muhiim ah inaad ka yeelato horta hamigaagu waa inuu farbataad waa riyootaa dhalinyaradu tahay inaad hamina yeelato riyana yeelato qofku haddaanu riyoon haddaanu hamiin dhalinyarana yahay waxba ka sii waxa kale oo u baahan tahay inaad himilo leedahay higsi sugan leedahay hiiraal fogna ku calaamadsan meel fog oo durugsan oo nolosha uga socotaana ay ku calaamadsan tahay marka aad leedahay hiiraal aad u fog meel fog oo ku suntan oo u socoto nolosha uga socoto ayaad gaari kartaa oo u adkaysanaysaa turanturooyinka waayo jidka dheer ee nolosha loo marayo waa la kufaa waa la dhacaa way xumaataa way kharibantaa way niyad jabaysaa mararka qaar kood waxaad gaaraysaa inaad quusato laakiin markay meel ku calaamadsan tahay xigmadu waxa weeye weliga ayaa laha socodka joojin maysid waayo meel ku calaamadsan baa jirto oo nolosha kaaga suntan haddaad rabto inaad madaxweyne noqoto ilaa aad madaxweyne noqoto fadhiisan maysid haddaad rabto inaad dhakhtarad noqoto ilaa aad dhakhtarad noqoto fadhiisan maysid haddaad rabto inaad daabshiilkii Soomaaliland noqoto ilaa aad lacag samayso taaj noqoto fadhiisan maysid haddii sariyadaadu ay yarayn hamigaaguna yaraa meel aad u socotaana jirin noloshana himilo aanad ka lahayn higsi iyo hidaalla aanay ku calaamadsanayn macnaheedu waxay noqonaysaa markaa maalinba waxaad doonto inaad qabato waxaana iman doona markaasi inaad jahawareerto inaad dawaqdo jidka inaad ka lunto oo halkii aad uga socotay bari galbeed aad u dhaqaaqdo
waan ogahay oo su'aalo badan baa madaxiina ka guuxaya waxaan ogahay inaad madaxiina ay ku jiraan su'aalo fara badan waxaad u baahan tihiin jawaabo laakiin nasiib daradu waxay tahay madaxdii su'aalaha adag ee haysan idinka jawaabi lahayd weli ma haysan sidoo kale dhibaato kale la nooshiino mushaakilaadka dhalinyarada haysta meelo idinka idin gaaro idinku leedin oo mushkiladiina ku gorfaysaan layna mana samayn mana haysataan idina maydaan samaysan laakiin imika dadaal baa bilaabmay kuwan baa kamid ah Sonia kamid ah ururada kale faraha badan ee dhalinyarada oo doorkooda fahmo oo qaata kamid ah laakiin doorkaas waa gaabis weey waxaan doonayaa walaalayaal inay la fahamtaan mas'uuliyad baa nasaareed inta idinka idinka waaweyn anigu aan ugu horeeyo waxay ahayd inaanu idin sii diyaarino laakiin nasiib daradu waxay tahay madaxdiinina idinmay diyaarin kuwa iyagii qaylinayna kumaanaan guulisan qayladu in idin soo wada gaadho waxa laga yaabaa markay saa tahay eegta arintu markay saa tahay waxa ku hor imanaya markaa haddii lagu diyaarin waayey awooddaada la dhisi waayey xogtaad u baahnaydna lagu siin waayey maxaad yeelaysaa baa hortaada imanaysa hortaada waxaa imanaysa maxaad yeelaysaa su'aalahan baa markaa hortaada imanaya qof kastoo dhalinyarina uu isweydiiyaa maxaad yeeli markay ku hor timaado waxaad oranaysaa markaa war miyaad sugi miyaad quusan miyaad suudali oo waad iskaga hajiri Somaliland miyaad iska qayliyo gidaar baad iska fadhiisan mise waa waalan ilaa dhalinyaro badan baa markay u qaylisay quus oo haayeen ka wada dhigay haddii su'aaluhu ay saa kugu yara noqdaan ay soo kankalmaan markaas kugu soo adkaadaan jawaabtu aad soo qadimaysaa waxa weeye maya waayo sabab baa jirta aanay ahayn ba inaad su'aalaha isu weydiiso haddaad ummaddan ka tahay 70% oo tirada ninka beeninaya aniga dahay yimaado waxa qudhaatay tirada lagu beenin karayaa waa maxay tirada waxa lagu beenin karayaa waxa lagu beenin karayaa oo kaliya ta reportkii UNDP iyo wasaaradda qorsheynta qaranku ay qoreen in ugu dhaadaan waa been oo tirada Jamhuuriyadda Soomaaliland 3 milyan iyo bar maaha waxaanu qornayno intaas oo kaliya ta beenin karta laakiin figuriska iyo factska aynu haynaa waxa weeye in 70% jirkeena Soomaaliland reportkuna saas u sheegaya wixii dambi halka ka yimaada aniga la raaci maayo xogta qoran baa loo raacaya way hadda tirada tahay marka tirada hadda tahay waxay ahayd awood inay gacantaada ku jirto laakiin ogaal baan ahayn awooddaana fahmin sida Soomaaliland aqoonsiga u lahayd aqoonsiga u lahayd wali waana aqoonsan arrin kale oo lagu celceliyo oo inta badan laga hadlo marka imaka aan weydiinayo hogaamiyaha iyo hogaaminta waxa laga yaabaa dadku waxay isku qaldaan qofka madaxweyne noqdun baa hogaamiyaha qofka xisbi gudoomiye ka noqdun baa hogaamiyaha fahamkiinu ma saasa ya bal ii sheeg hogaamiyaasha kale jira sheegade qof iyo laba ha sheegaan way badin way waa kuwe aha way معلم والد اها الحمد لله سؤال شو حوي silent leaders باجره hogaamiyaal ka muhiimsan kuwan aad taqaano ayaa jira waalidka kamida ilma yar soo barbaarinay macallinka kamida iskuulka wax kugu dhiga social workerada injooyada maamulaha kamida fanaanka kamida abwaanka kamida sheekha kamida waxa laga yaabaa markan saa kugu dhigayna taa si hogaamiyaal u yihiin soo hogaamiyu maaha qof followers le oo cid daba socoto oo cid u qushucsan tahay oo cid u bogtay oo cid raali ka tahay oo cid ku dayata Soomaa xidiga geesku imka haday soo galaan halkan muusigooda laga shido inteena madaxayna wada luxayna Soomaa macallimiintaada soo ma jeclido markay wax ku dhigeen dhagaha mar haraysin kan social worker-kiina isbedelkii loo baahnaayo bulshada dhexdeedu keenaya marka hogaamiyin markaynu ka hadlayno lagama hadlayo madaxweyne iyo wasiir iyo hogaamiyaasha xisbiyada lagama hadlayo waxa jira hogaamiyaal dahsoon af Soomaaliya iska wanaagsan dahsoon
oo ka muhiimsan oo haya shaqo ka muhiimsan shaqada ay hayaan madaxdan in maqana marka adigu tahay tirada ummadda intii badneed marka tahay xaqiiq maxaa hogaamiyaasha ugu faraha badani waxay ku dhex jiraan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaa ay ku dhex jiraan haddii lagu harowsaday oo lagu khiyaameeyay inaad tahay dhalinyaro oo dhalinyaraduna aanay xaq u lahayn inay hogaamiso qarnigan lagu jiro iyo maalintan la joogo ma shaqeynaysa aragtidaas waanaynu cadaynaynaa inaan shaqeynin waxaan ku cadaynaynaa maanta walaalayaal waxa jira dhalinyaro aad u yar oo wadamo waaweyn hogaamisa haddaan soo qaato Joseph Kabilaha Congo dhowrisadun jir buu ku noqday madaxweynaha waddanka Congo oo waddan weyn oo Afrika ku yaala oo qani ah haddaan soo qaato ninka duuda la yiraahdo oo isaguna prime minister ka waddanka Poland haddaan soo qaato Antifete oo ka Kosovo gabadhaasina waxay prime minister ka tahay madaxweyne ka tahay waddanka Kosovo Jigme Khasar Bhutan boqortooyada Bhutan ayuu isaguna ka yahay madax Tamim bin Hamid isaguna wuxuu ka yahay waddanka Qatar ninaan adduunyada laga jeclayn oo la yiraahdo Kim Jong Un Soomaaliya oo isla labiyo sidoo jirina wuxuu madaxweyne ka yahay oo maamula waddan Mareykanka imaka la jaafa jirqa oo adduunyada ku dhici laadahay waxaad soo qaadan kartaa Canada waxaad soo qaadan kartaa waddanka Italy dhammaan wadamada waxa hogaaminaya jiilkii cusba dhalinyaro hogaaminaysa Somaliland wax aliyaalo waxay kaga duwan tahay ma jirto wadamada adduunka ee xusna iyo qaar kale oo fara badan marka maanta laga bilaabo ha aqbalin oo ha yeelin inaad tahay dhalinyaro oo dabatana aanad xaq u lahayn inaad hogaamiso hogaamintu ma taqaano waxa la yiraahdaa da'da qof kasta ayaa hogaamiye noqon kara macallimiin 16 jir 17 jir macallimiin kuma noqon kumay noqon soo ma aragtid NGO ay hogaaminayaan imaka forum ka yara xuquuqda carruurta waxaan u maleynayaa qofka ugu weyn haddii qaarkii halka fadhiyaan qofka ugu weyni 16 jir 17 jir 18 jir weeyaan dawana leaders wana hogaamiyaal weey oo inagii isla garanay hogaamiyaashu inaan ahayn kuwan inuu naqaano oo kaliya marka maanta laga bilaabo taana in lagu harowsado ma doonayo walaalayaal waxa la jooga xilligeed ogaal noqon lahayd xog badan aad raadin lahayd awooddaada aad fahmi lahayd dabeetana markaasi aad ku dirqii lahayd Soomaaliland waxay noqotay walaalayaal waddanka kaliya ee aan hawlgab laga noqon siyaasadda hadda hadalkayga si fiican u dhageysta waxaynu ka hadlaynaa waa leadership iyo dhalinyaro Soomaaliland waxay noqotay dalka quraata ee baasha siyaasadda la hawlgab laga noqon wajiye isku mid ah magacyo isku mid ah ayaa 25 sanadood qaran ahayd koor taagan baadeg waxa la doonayaa walaalayaal adigu inaad ku dirqido kuwa siyaasiyiinta sheeganaya 60 jir ilaa 65 jir maalintii gaaraan inay baneeyaan kuraasta nin 65 dhaafay hadalkaygaas waa la duubay imka Soomaa Cabdikariin Axmed Moogoshin 60 jir gaaray hadaa aragtaan oo idin hor taagan oo kursi deedeeya qolada imka duubtay oo ka doonta klibka sababtu waa maxay war ummadda in la khiyaameeyo maaha qof 60 jir ka weyn muxuu qaban karaa idinkaan idin dhiibay macaan buu qabaa dhikar buu qabaa dulqaad male ma soo jeedi karo ma safri karo hadda kuwa maanta madaxdaanu uma jeedo waxba xanaaqina kuwan ilaahay baa ina baday de waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa waa mustaqbalka marka qolooyin kan imika jooga haddaad sacabka u tunto dee choice kaleba ma lihid bade choice wax ku bedelaba ma haysidee marka iyagu waad iskaga khasbantay laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxaan doonayaa inaynu nagu isdiyaarino oo aynu noqono ummad wanaagsan oo markii 65 jir gaadho idinkaan idila hadlayaa 65 jir markaa gaadhaan ummadayna kula soo banaysaan xitaa dadku haddii idin jecel yihiin waa inaad ku tiraahdaan enough is enough xilligan waa xilliga nafteeda anigu ilaalinay ummad ma ilaalin karo dal ma ilaalin karo waa xaqiiqda soo inuu isagu ilaaliyo ma waayo hurdidu saacadaha uu seexanaya waa inuu ilaaliyaa dawada xilligu qaadanaya waa inuu ilaaliyaa
nooca cuntada cunayo waa inuu ilaaliyaa siduu u seexanayo waa inuu ilaaliyaa markuu meedho eeg salaam markaa dee nin intaa samaynaya hablo inamo dee nin intaa samaynaya isagu islaalinaya ummadna ma ilaalin karo cabdi maxamuud cumar madaxweynaha kilka shanaad ee Ethiopia isbedelka muuqdo wuxuu ku sameeyay dhalinyaranimada weey ma daalayo soo ma idan daawanay shalay clip yar u dabaalanayo isagoo ordaya isagoo qamadi ridqaya isagoo karinaya isagoo dharka mari waa dhalinyaranimada adduunyada horumartay way adagtay inaad aragto qof tudaan jirku inaad madaxweyne diiday maalintu lixdan gaadhaba oranaya hadii sika waliba wadamada Scandinavian si kasta hadii loo barayo ma aqbalayo wuxuu oranaya caafimaadkaygan ku jirnaan xilligan mas'uuliyadu ma doqobto marka nimayahow waa inaynu ku dirqinaa kuwa tagi waaya inagu marka aynu soo gaadhnay inaga istiyaarinayna idinka istiyaarinaya markaynu gaadhno waxa aynu leenahay kaga dhabayno lixdan jir haddaad dhaafto ummadda amaanadeedu celi inankaaga u banee waxaa la joogaa xilligii hogaamiyaal daa'ira ay waddankan hogaamin lahayn haddaad nolol doonaysaa waase kugu raacsanahay in caqabado badani horteena yaallaan haddaanay maanta ahayn jaanis baa soo socda sideed ugu diyaargarowday sideed isu diyaarisay xigmadda hadalkayguna intaasun buddaareen xigmaddaydu ma aha revolution hadalkaan idinku waaninaya kacdoon maaha hadalkaygu waxa weeye isbeddel ayr yimaada xisbiyada dhexdooda ka yimaada dabeetana dalka jamhuuriyadda Soomaaliya lagu bedelo si aad markay isu diyaariso araar bay u badnayd intaasi kow wax baro Somaliland maanta waxbarashadeedu tayeyn bay u baahan tahay hagaajin bay u baahan tahay waxbarashadii Somaliland u baahnayd in laga dhigay u baahan tahay haddaan institutionska waxbarasho ee inoo yaalla aanay ku diyaarin karahayn boqolaal siyood oo kale oo la isu diyaariyaa jiro plus ku ah jaamacadda dhiganayso waxbarashadu ma aha inaad gilaas uun gasho oo dabeetana aad xiisada dhigato imtixaanka yar gasho shahaado yar lagu dhiibo waxbarashada dad saa u taqaano waxbarasho maaha anu waxaan qabaa waxbarashadu haddaanay qofka bedelin waxbarasho maaha siduu u fikirayo siduu wuxuu maamulayo siduu wuxuu hogaaminayo haddaanay arrimaha waxba ka bedelayn waxbarasho ma noqonayso waxbarashada Soomaaliland dadkii way bedeli lahayd way socon uu qabyaaladiistu ma soo saaray way socon uu mid waddanka aan dan ka lahayn $1,000 dhaafsanaya soo saaray way socon uu mid musuqmaasuq yaqaan bay soo saaray midaan inta maxaadkood ahayn rag jaamacadaha ka baxay Soomaaliland oo maanta laanta guraya soo ma jiraan nin baqanaya Soomaaliland run baa lagu bedelayaa been ma taale beentu way dhamaatay xishoodku u dhamaaday Soomaaliland 25 sanadood waxa burqanaya aqoonyahan niman sheeganaya oo wax iska bedelayaan jiray waxa liyaalo wax iska bedelayaan jiray xitaa wadaniyad ka soo faa'iiday damana wada caayna inta ka soo baxday oo dhan badi baan leeyahay iyo intaynu ka aragnay ninkii wanaagsanaa maybe dukaan buu iska furtay magaranaysa marka dukaankiisu uu maamushada isaga u taala inuu ma ogin laakiin kuwii siyaasadda soo galay golayaasha deegaanka soo galay agaasimayaal wasiiro maxay faleen waxa la yaalo waxa qontu soo ku dhismay hay'adaha loo dhiibina kama muuqato hadaag iyagana kama muuqato tashiilka iyo marxin wanaagsan ee xoolaha ummadda ku ilaalinayana kama inaaray marka waxbarasho ka duwan tan aynu imaka hayno ayaan idin kula talinayaa ka fogow waxyaalaha bini aadamka wasakheeya oo maxaa ka mid ah haddaad jaad cunto qofka doonaysid noqon maysid waddankan haddaad rabto inaad mustaqbalka hogaamiye ka noqoto qayshood khamiis oo gelinka dambe fadhiisato Soomaaliland ma bedeli karaysaa Soomaaliland waxay u baahan tahay in 24 saacadood shaqeeyo 20 hours ilaa aynu helno noocaasna wallahi inaan wax isbedelaya jirin nin qaadi sigaar cunaa inta inoo sameynaya
marka labadaas way nolosheena waa ka xaraan idinkaan idin hadlay oo ka xaraan nolosheena hablo duu kuma jiraan xabaa qosla midmarkaas hablaha ma wada matalaan de way qabyaalada iyaduna kamida waxyaalaha aynu iska reebayno si aad u diyaar garowdo dalkan aad hogaamiso isbedel ugu keento qabyaalada kamida waxa kaloo kamida arrimaha ay keensato eexda iyo qaraabakiilka iyaguna kamida laalush qaadashada kamida oo geeygeena nimaka waa iska caan muraadka aad xaq u leedahay si lagu qimiyo xafiiska lagu shaqeeyay ma waxa laga yaabaa gamcaha is dhaafaa marka iyaduna inay naga reebnaato arrin muhiim ah iyaduna jirta fadhiidnimada iyo karti la'aanta labada arrimoodna agteena waa inaanay oolin nin dhalinyaro ah hadii mas'uuliyad loo dhiibo oo ummadda loogu dhiibo waa inay kartidu ka muuqataa waa inuu dadaalku ka muuqdaa waa inuu yahay nin madaala ah waa inuu noqdaa arrimahaasi haddaad ka fogaato inta bini aadamka wanaajiso ayaad markaa samaynaysaa saacado badan inaad shaqayso saacado badan inaad soo jeedo dadkaaga inaad jeclaato cadaalad inaad ugu shaqayso labada qof ee xafiiskaaga dani ka soo wada gashay inaad qabiil ku kala saarin وحخري ولا لا بوجاكت أدونك أخري إما كواحد آخرنا بوجاكت قبيلة ردا مقاحك كستوحنا لفرنا ريهبل يوسير كيجي يا جاسمه يجي يسمع لنا محن قهلي الدنيا ده وحال لقمة معمولة لقمة نهر مريم كتبت أدونك لقى قرآن بالآخر reer hebel iyo nina isku reertiin iyo wasiir aad sheeganaysa iyo mid lagu ma bedelo adeer waxa akhriyo buugaagta adduunka la qoray akhri maskaxdan kuri lama raba calooshu inay ku weynaato Soomaaliya caloosha weynaato dadka Soomaa waxaynu rabnaa hablo iyo inamo maskaxdu weynaatay baan rabnaa maskaxdu kuri calooshana yaree nin gaajooday calooshiisu gudantaa Soomaa dadkeen wax weydiinaa wax dad calooshooda maamuli kari waayeen inta galeysaba ma yaqaanaan taas way ay halkan u tagtay marka riyada badi dhalinyaro tahay nin dhalinyaro haduu riyo waayo uu riyoon waayo oo hamiyo waayo oo bari iyo saad dambe iyo saakuun iyo 5 sano iyo 10 sano wuxuu noqonayo garan waayo maxamed xajiraan cigaan Allah u naxariisto damigiisana Allah dhaaf hogaamiye wanaagsan oo ina soo maray buu ahaa intii duruub uu galay madaxnimadu way iska dambi badan tahay Allah ka dhaafo isagoo aad u yar buu aabihii u yeeray waa an example aan idin siinayo aabihina maqasheen ma taajir buu ahaa dadkii Soomaaliland ugu ladnaa buu ahaa lixnaadkii aabihii wuxuu doonayay maadaama uu yahay inanka qudhaatu leeyahay inuu inankiisa ka dhiga ganacsade si uu xoolaha iyo adduunka uga dhaxlo amaha jiraan cigaal hadal buu ku yiri waana qoran tahay aabbo daarahaaga iyo adduunkaaga midna ma doonayo muxuu ku yiri waxaan doonayaa aabbo inaan magacna yeesho Soomaalina u taliyo badeeg waa dhowriyaatin jir weey dhowriyaatin sano isagu juusaa hadlaya maxamed xajiraan cigaal maalintu dhimanay madax buu ahaa Soomaaliland iyo Soomaalina u taliyay sidaas oo kale la doonayaa qofka dhalinyaradii marka la soo barbar dhiga shilimaanta iyo go'aanka halka nolosha uga socoto inaad kala doorato miyada awood u leedahay inaad kala doorato 20 milyan 50 milyan trillions shanad ku jira in lagu dhiibo oo lagu dhaariyadaada iska daayo kaalayo daabshilki Soomaaliland noqo miyaad oran kartaa adeer 2 milyanskaaga iyo trillions-kaaga iyo shanadaadaba iska hayso tan baan doonayaa inaan madax ka noqdo bedelay lacagtaadana ma rabo war ilaa halka ay ku gaarsiisay riyadu oo riyo aad ku adag tahay aad yeelato qofka doonaysa noqotana ma noqonaysid anu dadka mooda liiday siyaasiin ha wada noqdaan waxaan leeyahay macallin hadaa doonaysa macallinimada kaga dhabo macallin ugu wanaagsan noqo waxaad ku faantaa 35 sano jaamacadda Hargeysa wax ka dhigay 40 years baan lecturer ahaan jaamacadda Hargeysa wax ka dhigay dugsiga sare Faarax Omar baan macallin dugsi sare ka chemistry physics biology 20 years 15 years war halka doonto urur bulsheed samee kamida dhali halkaaga ku adkayso fanaan noqo abwaan noqo sheekh noqo dadka wacdi waxa doonaysa bal adigu noqo ganacsado noqo
waxaad doonaysaba noqon adiguyo intaad yartahay horta calaamadsaday ha iska noqonin xitaa waxbarashadaadu waa inay ku dhisnaataa halka doonaysaa inaad gaadho business management baan bartay political science baan bartay ama engineer haddaad ku taal noloshaada maxaad ka doonaysaana waxaan uu bartiyo wuxuu doonayo noqdaaba isma laha haddaad tiraahdo maxaad u baydhayo sababta ku sheegi kari maayo maanta haddaad doonaysaa dhakhtar noqoto dhakhtarkaaga ahowdee ummadda dawee caruurta dawee hooyada dawee kliniga ugu wanaagsan ee adduunka looga yimaado riyada ha noqoteen Soomaaliland ka samayso cibaadada ilaali hogaamiye bilaa diina Soomaaliland meel ma geynayo arrintan aan ku celiyaa amaanada iyo diinta ayaa ka mudan aqoonta qofkii murmayo deeq haalayo soo baxday qofku goorma amaana ilaaliya markuu diin leeyahay Soomaa qof midaan salaad tukan oo diin lahayn oo amaana ilaalin markaad wasiir ka dhigtay muxuu ku ilaali ilaahay ba isma yaqaanaan ana sida kan gaalka aan dib lagu ma soo korin edaab lagu ma soo korin xoolaha ummadda iyo wixii kala gartay daacadaha waliga daacadnimadu waa muhiim marka qof dhalinyaro tahay inaad daacad noqoto waa arrin muhiim ah halkan maxay naga siiyay daacad ma la imaa daacadaha doonayso inaad doorkaaga qaadato daacadaha marka hore runta u istaag Soomaaliland beenta iyo runta beenta sareysa waxa qaldana waa intaas runta u istaag haw noolaan sifa kidisiya adar marxinta baro markaad qofka noqoto marxinta yaqaan baad ummadana waxay ilaalin karaysa hogaamiyaashii imika mucjisada adduunka ku noqday ma taqaanaan oo kuwii Afrika dad soo qaato Tanzania tag Makavuli adduunyadu waxba lama aha dadku iska dhex jooga dadku dhex lugeynaya mashaakilaadkooda iyo dhibaatooyinkooda doonaya wax ka qabto akoonkiisa lacagta ku jirta buu hal cad sheegay mushaharkiisana waa la yaqaanaa tuug kasta oo ummadda lagu dhex sheegana gacan buu ku qabtay waxaanu xoolaha ummadda ugu baahnay inaad garanaysa urradii shaqaalu ka soo dhex baxayo intaa yar oo haysta ku filan deeyo 30 kun oo doolar buu ilaamiyay marka waxa laga yaabaa 30 kiisa kun oo doolar buu raali ku yahay markuu madaxweynimada ka dago in iskaga filaanayso because waxaanu aqoontii sidan uu noolayno qofka bahad magaandi hadaad u noqoto Nelson Mandela hadaad u noqoto hogaamiyayaasha musuqmaasuqa iska dheereeyay ee intooda yar ku filaatay waa dadkii maxay waa kuwii diinta lahaa waa kuwii marxinta yaqaanay waa kuwii sida fudud ee yar u noolaa inuu soo dhawaanay qaaliga ahayn Umar ibn Khattab asxaabtiisu iska dhex joogay inankiisu ugu ka amaanaysanayay wuxuu soo galay uu sadaqaysanayay adduunyaduna agtiisa macna kama lahayn hadduu dhulka seexdo iyo hadduu caw ku seexdo isugu mid baahay waliba ilaahay wuxuu u dhawaa markuu dhulka seexdo marka taasina waa taa tusaalayaashaasna waad ka faa'iideysan kartaa dhalinyaro tay wax kasta nimayo oo qorayso iyo wax kasta oo dooranaysa ka fiirso qoraalku waa taariikh waxaad oranaysaana waa taariikh diiwaankani kugu jiraysa waliga ayaa laha bari haddaad maanta wax noo sheegto oo bari waxa wax ka duwan aad samayso dadkii ma ahaanayaan waa hubaal dadku inay hortaada keeni doonaan imaka soo kaliibsi ramay bilaabay shalay iyo maanta siyaasiyiinteena la soo qaadayo muuqaal uu yiri shalay wuxuu yiri iyo maanta wuxuu yiri soo lama soo qaado kii siiraay shalay caayun ba maanta amaanay moogtay kii laha kulmiyo waa mataguma oranay maanta waa jannadii kii wadani kulaha waa maxaral jimba khurada waa xalkii ummadani I don't know aan ma garanayo qofku ila waxay ahayd inuu noqdo qof wax aaminsan markiisa ku adag oo hadii ilaahay idamkeeda leeyahay markuu oranaya midaan wariga ka noqonay tahay marka nimayo waxa qoraysaan
iyo waxa oranaysaanba waxay ka turjumayaan qofka tahay musuqmaasuqa la iska daayo oo dadku tuug tahay qabyaaladda la iska daayo oo dadku qabyaaladista tahay meeday ku soconaysaa saas Soomaaliland kuma soconaysaa marka waxaynu qorayno iyo waxaynu oranayno ficilkeena iyo maxay seeranayaan walaalo arrin kale oo muhiim ah ku sheegayay waxaan doonayaa inaad u dul qaadato kala duwanaanshaha fikirka Somaliland mushkilad baa jirta dhalinyaradeena haysata kala duwanaanshaha afkaarta iyo ra'yigu waa mushkilad weey laakiin ilbaxnimaynu u baahanahay waa inaad noqotaa qof awood u leh inaad dhageysan karto afkaaraha iyo fikrada ka soo horjeeda kuwaaga Somaliland sidee u doodaysaa sidee isbedelkay rabto u sameynaysaa dhalinyarada dhexdeeda haddaanad ogolayn idinku kala aragti duwan oo kala afkaar duwan doodayda dhex maraan haddaad u dhageysato ka isku fikirka tiina isku afkaarta tihiin maxaad bedelaysaa markaa day adduunyada nolosheedu miyaanay waxa lagu bedelayaa ahayn afkaaro iyo riyo kala duwan oo la rogrogay oo mid la qaatay miyaanay ahayn haddii la rogrogi waayo markaa arrimaha taagan haddii la rogrogi waayo sidoo xalku ku imanaya marka dhalinyaro haddaad tihiin haddaad rabtaanna wax hogaamisaan haddaad rabtaanna nolol wanaagsan samaysataan waa inaad awood u leedahay inaad si adiga lagu dhageysto adiguna waa dhageystaa fikir kasta oo fikirkaaga ka soo horjeeda ilbaxnimada ku jirta walaalo la saaxiib oo la rafiiq saaxiibo wanaagsan kuwa hanka sare leh riyooyinka waaweyn leh noloshana ka calaamadsaday meel aad u durugsan ay ka go'antayna halka ay gaadhaan qofkaas uma wax ka baran karta qof maalin walba kula imanaya waan dhoofayaa waan joogayaa beer baan qodanayaa lowgaan ka baranayaa islaamic shariica loo baan baranayaa political science baan baranayaa dhakhtar baan noqonayaa qofkaasi wax aliyaalo wax kugu soo kordhinaya ma jirto isagii baa duulaya badee adduunyadu fishan kama maaranto ahdaaf kama maaranto marka qofku haddaanu sugin ujeedooyinku nolosha ka leeyahay ahdaaftu ka leeyahay himilooyinku ka leeyahay higsigiisa iyo hilaaladiisa haddaanu suntin halku uga socdo nolosha haddaanu intaa garanayn oo maalin walba aad meel u dhaqaaqdo waxay noqonaysaa dad jidka doontaba raaco jid waliba uu ku geyn halkaad u socoto taasina ma soconaysa dee marka saaxiibada wanaagsan ee hanka leh ee riyooyinka wanaagsan leh la saaxiib wax ka baro kuwa aad u bogto sida wax u hogaamiyaan sida wax u xukumaan sida wax u maamulaan haddaad u bogtay dahabshiil siduu ku sameeyay dahabshiil company waa inaad research iyo cilmi baaris badan ku samaysaa dahabshiil riyadiisu siday ku timi siduu kaga midho dhaliyay halkuu maanta joogo siduu ku soo gaadhay haddaad jeceshahay Dubai sida loo sameeyay ama loo qurxiyay ama loo horumariyay inaad wax ka ogaato akhri buugaagta Maxamed bin Rashid Soomaa buugaagtiisa akhri buugga ugu fiican ugu jecel waxa la may fishan akhri waxaad fahmi doontaa markaad Dubai sida ku sameeyay haddaad isagu ku noqdo sidoo aniga bay ugu yahay kuwaad u bogtay halku dhag wuxuu leeyahay cajiiba oo doonay inaad wax ka fahamto tusaale 10 ku siinaya wuxuu yiri what I have achieved in Dubai is not even 5% of what I have in mind for Dubai boqolkiiba 5 kama aha guulaha aan ka soo hooyay Dubai horumarkeedu waxaan ugu riyoonay Dubai macnaheedu waxa weeye Dubai maanta siday tahay ba 5% isaga uga dhigan tolo markuu 95 ka haray dhameystir si Dubai ka kansa markaa de markaa mala bas ma u baxay dayax malaade hudheeladuna dayaxay ku oolayaan markaa qofku inta Dubai ka duulu mala dayax day soo seexanay way wax xaray baan jirin bade inta nolol lagaga taamay magaalo bilcideeda quruxda dhaqaalaha uu sameeyay hadana wuxuu leeyahay riyadayda Dubai waxaan ugu riyoonayaa waxaan guulaha aan ka gaadhay Dubai boqolkiiba 5 kama aha waxaan ugu riyoonayaa Dubai inay noqoto 95 baa wali waxay waa kan wada deemka badda dhexdeeda ka sameeyay geedka timirta ama garanaysa wali uu wadaa maalinba saxarihi cilada ahaa buu green gebigiisii bedelayba
marka isaga qaado waxa kale oo iyaduna aad qaadan kartaa boolki gaamaha Rwanda oo isaguna aad tusaale u soo qaadan karto oo maxaad tusaale u soo qaadan kartaa wuxuu madaxweyne wuxuu ka noqday madaxweyne meel ay isku dileen oo Johnson ka dhacay laba qabiil oo wada ahaa wadanka Rwanda leeyahay wuxuu sameeyay wadan qurux badan oo dhaqaalihiisu kobcayo oo tusaale loo soo qaato oo iyo muxuu kale sameeyay magaalada ugu nadiifsan Afrika oo la wada majiiranayo waxa kale tusaale soo qaadan kartaa Lin Kuan ninka la yiraahdo Singapore sameeyay Mahathir Mohamad ka Malaysia waxa kale tusaale soo qaadan kartaa ku dayan kartaa oo akhri kartaa buugtiisa Nelson Mandela Madiba oo ummad cadaan iyo madow isaystay South Africa ku heshiisay halka ugu dambaysa kuwa inoogu mudana Umar ibn Khattab iyo hogaamintii nabigeena suubana alayhi salatu wasalaam nabi Maxamed ayaad iyagana akhri kartaa wax laga qoray wixii laga qorayna way yaalaan halka ugu dambaysa si aad u gaadho inaad noqoto wadankan hogaamintiisana door ku yeelataan abaabul kuwa kula daada beer education waxa la soo mataqaanaan intii isku diibo wada hadlaysa imaka markaan aanu idin la hadlayo iyo marka mid idinka idin kamid oo 20 jir ama 30 jir idin la hadlayo isku macna ma sameeyso marka qofka kula daadi uu adiga wax ku sheegay macna ku sameeysa gaar marka waynaad abaabushaa intii isku daadi wayna sababshaan si aan marka u noqotaan ummad wanaagsan oo marka Soomaaliland halkii u socoto gaarsiisa waqtigood iska kooban intaas aan isleeyahay malaaca waxda lagu oran karo bini aadam goor dambe weeye meeshu waa inagu kulushahay wax inta ka badan hadii la soo karaahiyo halka ay lagu joojiyo ku fiican tahay الله waxaan ka barayaa maalin kale iyo madal kale oo isla mawduucana way mawduuc inta lagu soo koobi karayo maaha waraartiisu kaliya waqti ma ka qaadis intaas aan kaga baxay hadii qof iyo laba iyo saddex iyo afar ay jiraan inay wixii su'aala wixii talaa wixii tusaala idinku ina wax istiraadaan intaana waan ogolaanayaa waliba in aniga su'aal weydiisan waxa ka fiican in idinkuna wax isu sheegtaan oo intaan ka tagay ka guuxaysa aad tiraahdo wana sababtan halkan ay tahay in lagu joojiyo si marka intaan anigu iri iyo inta adigu oranayso la isu geeyaa ee habeenka inoo dhameystirto haduu jiro qof expectationkiisa ama wixii uu leeyimi halkan ka filaya aan u oranna waxa rajeenaya dadka imka microphone ka helaa inay waxa shidaya ay doonayaan inay yiraahdaan si walaalkaygaasi ama walaashaydaasina marka wixii ay iga filaysay marka ay u hesho marka waan ka baxay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh